horta dad badan waxaan akhriyay ayaama dhoweyto jaraa'id ka soo baxa imaaraadka oo marka ay Fahad Yaasiin analysis saarayaan waxaad moodaa inay siday rabaan wax u maclinayaan. imaaraadku Fahad Yaasiin markay sheegayaan afar shay bay ku sheegaan taxliilka ay saaraan imaaraadku kullu akhbaartoodoo dhan macluumaadkoogoo dhan afar shay bay ku sheegaan Fahad Yaasiin. kow waxay ku sheegaan salafi qadiim inuu ahaan jiray salafi تأخون بعد ذلك كديم الإخوان المسلمين نقضي قطري هوية إنه قطر وشقايو واضحة أنت أفراد غامض إنه يقف قرصون أو الفهم الكريم إنه يهي أفر تابي شغال أوكي فهد ياسين إنه اعتصام كجري واتحاد كمدها وسلفي هي قف كشكسن مجرى الدونك أوردن وأوجي تاس ومعلومة حقيقية صادقة دقيقة تسأل كايدك لبو إنه إخوان نقضي ومعلومة كاذبة ومعلومة بهنة قفك يقان أن أقول بوحى لو أخريا ما أقول نقول قرضاوي زيارتي قرضاوي معها شيخ إخوان المسلمين كن سجال بقول سجاشنكي يوشي قرضاوي كعذر دارتي إنه يهي من إخوان المسلمين كميدا قرضاوي وحو نقضي شخصية عالمية أو أمد الإسلام كوردن أي أسمته أبوها إذن waxaa ziyaarta طالبان oo ikhwaanka aan wada socon waxaa ziyaarta salafiyada sacuudiga waxaa ziyaarta suufiyada waxaa ziyaarta kull naas shiicada marka qofku inuu qardaawi ziyaarto kama dhigno inuu ikhwaan muslimiin marka ninkani fikir ikhwaan muslimiina ma qabo taasina waa khata tahara waa sax talabana waa khata inuu qatari الهوية yahay hawadiisu inay qatari tahay inuu jaziira ka shaqeeyay inuu shabakad jaziira u shaqeeyay shaki kuma jiro inuu cilaaqo wanaagsan qatar la leeyahayna shaki kuma jiro markaas intaasina iyadana waan saxaynaa arinta afraad oo ah waa qaamid aanin qarsoon muu jiraa qof mukhaabaraad ah oo sirdoona oo qarsoonin oo cad oo waadixa ma jiro anigu jabuuti markaan joogay laba nin baan kala saaxiibaha oo marka qaarkood la kulmi jiray labada nin baba midi aad buu u furfuran yahay laakiin furfurnaashiisu boqolkiiba 95 wuxuu ku sheegay waa been shan baruna isku furfuray waa beena waa furfurnaasho iyo qasal faruuriya dusheeda midina waa dam min dhacas buu ku soo eegaya saan buu ku eegaya waa dam waxba kama helaysid waxaan u bixiyay kaydka Ismaaciil Cumar Gilaal rabika waa kayd asraarta oo dhan halka bay ku jirtaa idan qofka sirdoonka ah waa qaamid inuu qarsoonaado la fahmi waayeen laakiin anigu laba shay baan ninkan saddex shay baan Fahad Yaasiin ma aqaano laakiin laba goor ma noo sheegay saranay labada goorna xashkan ku oranay xashkan markaa isagoo dariiq socon ku oranay wuu salaamay wuxuu yiri aan ku wareystaan doonaya jaziira waan ku arkay mar labaad saama isku oranay saam buu yiri bas waas dhaafnay dib dambe meel aan ku arkay labada goorna waxay ahayd Sacuudiga xashkan wali waa maqmaamino oo dadka ay jecel isagoo dhagax soo tuuraya annaan dhagax ka soo noqday ma ku labada garba marka loo nolosheedu ay kulantay ma jirto laakiin aan buudin marka aan ka eego aan kasab waxa laga qoray aan eego saddex shay bay ka soo baxday qorta waa daki waa nin aqli badan weeyaan intelligent weeyaan waa nin maankiisu dadka kale uu wax ka dheeriyay dadku hadday maaragtay shan dareen leeyihiin dareenka lixaad iyo ka toddobaad ma u qabaa marka arrintaasi waa muhiim meeshaas siduu u gaaray way ku tusaysaa labo sida uu qofku iibinayo u iibin yaqaano way ku tusaysaa saddex sida uu cadowgiisa uga adkaan karana way ku tusaysaa saddexdaasiba inuu yahay qof daki jiddan ah waa saddex waa daki arrinta labaad waxa weeye waa sameeye sida uu yiri ninka maxaan ku dhahdaa maaragtay professorkan Samatar ee jaamacadda Mareykanka dhiga wuxuu yiri isagu siyaasadda ma rabe waa sameeyaha siyaasiyiintu sameeyaa isagu arrintaas maxay ku tusaysaa in uu gartay dowrka marka la eego waxaan la sameeyay iminka siyaasadda Soomaaliya ayna bislayn ay 4.5 ay ku shaqaysan tahay 4.5 ay ku shaqaynayso oo reero waaweyn meesha ay yeesheen oo reerana waa yartiin laga yidhuunay wax yar ma jireen sidaa la isku waafaqay wuxuu gartay dowrku ciyaari karo dowrkiisi markaa wuxuu noqday an yasnaca siyaasi an yasnaca alxaakim
walidaalika waxaa dhahdaa dadi waxay yaqaanaan sida madaxda loo sameeyo, dadina waxay yaqaanaan sida madax loo noqdo, dadina waxay yaqaanaan sida madaxda loo dumiyo, dadina waxay yaqaanaan sida madaxda loo fashiliyo. waxaasi wax la qoraya. waxaa ka mid ah ninka la oran jiray abu muslim alkharasaani wuxuu sameeyey dowladdii cabbaasiyada, isagaa sameeyey dowladdii cabbaasiyada, isagaa riday dowladdii amawiyada. mu'asisu dowlad cabbaasiya waa abu muslim, laakiin dowladdii baa dishay. dowladdii uu sameeyey, uu u dagaalamay, uu kharaasaan u tagay, uu meelaha ka soo ururiyey dad, oo uu dowladdii amawiyada ee xoogga badnayd uu dumiyey, uu dowladdaa dhisay, islaamkii xoogga badnayd, dowladdii baa dishay. marka halkaa waxaa kuugu jira akhi fi lislaam inaad ogaatid ood garatid in ay jiraan waxa loo yaqaano ragga caynkaasiya oo ah saanic adduwal, saanic alandima, saanic asiyaasi. arrin saddexaad buu leeyahay ninkan wuxuu leeyahay shabaka calaaqaatiya laakiin taxta ataawila. wuxuu samaystaa shabakad calaaqaada. calaaqaadku waa xiriirka, waana shabakad sida computerka ah, laakiin miiska ma kor taallo, miiska hoostiisa taallaa. calaaqaadka uu leeyahoo dhani kulluhaa tadul cala annahu rajul ijtimaaci, laakiin maaha arkay maaha, waa isagoo la arkayn ayuu wixiisa samaysanayaa. dadkaasi inta badan waa dadka noqda mukhaabaraadka weeyaan. dadka noocaasiya waa dadka mukhaabaraadka sirdoonka noqda ayay ku jiraan. marka ani saddexdaa shay baa ninkan